galmudug kama shaqeynayo waa loo hiiliyay ardadii Puntland Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu yiri amarka goodaha bare kama shaqeynayo Puntland Jubbaland way u hiilisay ardadooda waxa la yiri goodaha bare amarkiisa Kismaayo kama soconayo yaa ka dhigay wacal yaa ka dhigay dad la'aan yaa ka dhigay bilaad damiir dadkan caasimada deganow maanta wiilkaaga waa la toganaya dadka caasimada deganow maanta dawladdu waxay gowracaysaa wiilkaagii ardaga ahaa dadka caasimada deganow hooyada yaayada iibinaysa wiilkeeda maanta waa dhaawac aabaha xamaaliga ah wiilkiisu waa dhaawac ardagii wax baranayay Muqdisho indhaha laga toganaya waxa keenaya oo u muuqda ummaddu inay ogaatana loo baahan yahay waa xaqiiqo maanta banaanka taala ku raaxayso awooddaadu intaasay ku egtahay ardagaagii oo qaylan aaminaya iyo qoriga AK47 oo la hortaagan yahay wasiir goodax barre oo le kaas baa qaylo badan ee toogta kaas xabada ku dhufta kaas qoriga caaradiisa la dhaca kanibaadka ku garaaca gabadhaasi xira wiilkaasi xabada ku dhufta wasiir goodax barre oo ardaydii kala xulanaya oo ummadda Soomaaliyeedna ay wada daawanayaan ku raaxayso ardagaaga sida ay dawladdu u toogarayso ummaddu marka ay sidii Falastiiniyiinta kale ay noqdaan ummadii marka ay ubadkoodu dhagaxa tuurayaan ummadii markii maanta sidaan loo galay ummadii marka ay marayso dabayaaqo waa cudurka ugu dambeeya ee reer Muqdisho ay u gariyo doonaan maanta farmaajo wax kasta way idinka togtay maanta qayra wuxuu idin sameeyay haba yaraati malaha aaway laamihii amniga aaway xer ilaalintii qaranka isku soo sawiraya dameer loorarku intay ku bateen oo dhahayay maxay tahay dameerka loorarka inta loo saar aawa ninkii ku raaxaysanayay dameer xamaaligiisu uu yiri maxay tahay loorarka inta saar aawa xirxalaalintii qaranka war haday islaamnimo jirto aaway laamihii amniga dalka aaway qayre aawa farmaajo aawa dawladnimadii Soomaaliya aawa ninka ummadda Soomaaliyeed loo doortay aaway ninka cadaaladda maanta ummadda Soomaaliyeed u iftiimi karaya magaalada Muqdisho saaka waxa ka bilowday barnaamij ka dhana wasiir goodax barre oo kula dhaqmay qaab aan nidaam ahaan aan wanaagsanayn ardaydii uu la hadlay xalay wuxuu ku yiri arday miskiina oo yaa Allah ya nafta trisboor ku haray hooyo yaaya iibisa wiilkeeda oo ay siisay lacag trisboora oo imtixaan ku galay ayay dawladdu heerka ay ka gaadhay kibirka iyo isla weyniga heerka ay ka gaadhay dhibaataynta ummadda Soomaaliyeed waxay tiri alif macallin tiray waaye waligeed dawladdu waxbarasho free ardaydaasi ba isasin iskoolkoodu free ma aha trisboorka ay ku tagayaan dawlad bixisa haba yaraatay malaha saaka waxay damceen markay inay yiraahdaan barnaamij nabadeed ayanu dhigaynaa si goodax barre ay dawladda Soomaaliya ugu gudbiyaan gudoomiyihii gobolka Banaadir albaabadu ka xirtay laamihii amniga dalka albaabaday ka xirtay ciidamo u daacada goodax barre oo ay xarunta CID da dawladdu ay dirtay ayaa lagu amray ardayda in lagu laayo caasimada Soomaaliya ee Muqdisho maxaa idin yaala daawadaya maxaa ku yaala reer Muqdisho maxaa idin yaala maxay tahay siyaasiyiintan aamusan ee ardagooda la dilayo muxuu yahay aabaha aamusan ee ardagooda la tooganayo war hooyo waa gablan aabana wuxuu noqonayaa wiilaawe ma jiro qof insaana oo u dul qaadan kara ilaa heerka inta la eg isla weyniga qayr jawhar waa laga diiday isla weyniga farmaajo waa laga diiday Jubbaland isla weyniga qayre iyo farmaajo waa laga diiday Puntland war miyaynan dadkanu dad lahayn miyaynan jirin damiir haba yaraatee dhaqaaqaya ummadda yaa umaqan war fiiri Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu yiri dabaalnimada goodax barre